Jubbaland madaxweynuhu wuxuu ka sheegi karaa maanta ma jiraan weerar baa lagu qaaday oo dawladdu ku qaaday cir iyo dhul iyo dhaqaale leh waana lagu soo jabay waxaanan hadda ku faraxsannahay Jubbaland inay nabad tahay safe tahay ciidamadeeda iyo dawladdeeda iyo madaxweynaheeda iyo maamulkeeda iyo shacabkeedu ay shaqeynayaan waxaan u rajaynaynaa inay sii xoogeystaan dadkii ka dambeeyay duulaanka Jubbaland lagu qaadayna maanta halkan ayay aanu isku haysanaa marka weerarkii Raas Kamboni lagu qaaday kiisii labaad baarlamaanku ka furan yahay waana arki doontaan maalmaha soo socda hadii la yiraahdo sheegashadu horta in shabaab laga adkaado Daesh laga adkaado cid kastoo Soomaaliyeed oo wanaag rabta waa jecesha laakiin waxa ay dawladdu sheeganayso waxay qayb ka tahay ma aha tuulooyinkan hadda ama degmooyinkan hadda gobolka Shabeellada Dhexe ama Hirshabeelle waa la ogyahay shalay kulli shabaab qabsaday meelaha qaarkoodna waa isaga baxeen meelaha qaarkoodna waa haysan saaka laga qaxayay meelaha qaarkood marka Daeshna Puntland baa la dagaalamaysa oo maxaan ku idhaahdaa runtii aad cashar ugu dhigtay shabaabna Jubbaland baa la dagaalamaysa laakiin inta kale waxaan ka baqayaa inay qalabeeyaan shabaabka oo ay shabaabka xoojiyaan anigoo runtii jeclaan lahaa ciidamada qaranku inay guuleystaan laakiin maamul xumada ka jirta systemka dawliga ee halka ka jira ayaa runtii dhabar jabinaya gobolka Gedo iyo meel Jubbaland ka midna lama qabsan karo shacabka reer Jubbaland uu fahamsan yahay waana u diyaarsan yahay waxayna la mid noqon doontaa duulaankii Raas Kamboni lagu qaaday oo kale aad u mahadsan